xildhibaan Axmed Kheyre oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka Boorama oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa waxa uu si adag uga hadlay kor u kaca ku yimid qiimaha leydhka kaasi oo ay shirkadaha bixiya adeega leydhka Somaliland isla afgarteen inay kor u qaadaan qiimaha leydhka iyagoo ku sababeeyay kor u kaca ku yimid shidaalka. xildhibaanka ayaa waxa uu baaq u diray shirkadaha bixiya adeega leydhka ee magaalada Boorama sidoo kalena waxa uu xildhibaanku baaq u diray bulshada ku nool magaalada Boorama. maanta ay tahay 5tii bishii June waxaan halkan soo istaagay in aan warbaahinta la wadaago qodobo muhiim ah oo dadweynaha sharafta leh soo doortay runtii ay dareemayaan kuwaas oo qiimo korodhka ku yimid adeegyada korontada. waxaan halkan baaq uga dirayaa shirkadaha korontada khaasatan kuwa gobolka Awdal ka shaqeeya kuwaas oo runtii si guud qiimaha kala siman Somaliland oo dalada ay leeyihiin ba ay soo saartay qiimo korodh ku yimid dhinaca unitkii hore ay u dalici jireen taasoo runtii bulshada waqti xaadirkan lagu jiro aanay awoodi karin iyadoo laga rabay shirkadaha waqti xaadirkan inay ay wax ka dhimaan in ay dadka taakuleeyaan inay bale qaar kood bilaash uga dhigaan in ay halkii la joogay hoos uga dhimaan annagoo aan dafiraynin xaaladda guud iyo sixir bararka dunida ka jira iyo shidaal yaraanta iyo waxa soo dhan haddana runtii ma aha marxalad maanta qofka muwaadinkii aw muwaadiniintiisa ku tacadii karo ama wax ku dalici karo waxa runtii aan aad iyo aad u bogaadinaya komishanka tamarta oo runtii soo saaray go'aan ay ku hakinayaan dalacada qiimaha korodhka ku yimid korontadii la isticmaali jiray taasina waxay ka turjumaysaa runtii bulshooyinka Somaliland guud ahaan xaaladda ay maanta ku jiraan inaanay ahayn mid loo baahan yahay in wax lagu dalacay ay tahay mid maanta dadka loo naxariisto oo wax laga dhimo. shirkadaha korontada bixiya ee degan gobolka Awdal khaasatan caasimadiisa Boorama runtii waxaan ka warqabnaa adeega ay isticmaalaan ee ay korontada ka dhaliyaan tamarta korontadu inuu u badan yahay solar system oo ay cadeeda ka dhaliyaan taasina ay runtii aad iyo aad uga jaban tahay marka loo eegayo naaftada. waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa shirkadaha anigoon u hanjabaynin anigoon ku tacadiyaynin anigoon u cagajugleynaynin war dadku waa dadkiinii dalku waa dadkiinii dadku maanta garab idinka baahan yihiin maanta waxa idinka baahan yihiin gargaar maanta waxa idinka baahan yihiin taakulo maanta waxa idinka baahan yihiin adeega aad ummadda u haysaan wax kasta oo sacrifice aad sameyn karaysaan aad u sameysaan la idinkama fadhiyo maanta in aad qaadaan talaabooyin aad wax ku kordhinaysaan. dadweynaha sharafta leh waxaan ugu baaqayaa Hargeysa waxa ka dhacay mudaharaad shirkadaha qaar lagu waxyeeleeyay mudaharaadina shirkaduhu waa shirkadaheennii kambaniyadeenii dadka ka shaqeeya waa dadkeennii kuwa maal qabeennada ee shirkadaha iska leena waa inagii wada hadal ayaa dawladda iyo shirkadaha u socda waxaan insha Allah taala aan ku rajaynahay inuu soo gabagaboobo oo natiijo wax ku oolo oo midho dhala oo bulshadana u dana shirkadahana u dana ka soo saarno ilaahay idinkii saaka waan wada hadalay gudoomiyii komishanka tamarta Somaliland waxaan insha Allah taala ka dul sugaynaa sharaa'iga iyo komishanku waxa isla qaataan ee bulshada iyo shirkadaha badana la ogolaani maayo inta ka horeysa in ay shirkaduhu isticmaalaan talaabo kasta oo awood u eg oo dadkaasi lagu tacadiyo oo qiimaha hadda ay dalaceen khasab ku soo bixiya marnaba lama ogolaanayo. waxaan u cadeynaynaa inta wada hadalkaasi socdo qiimihii ay hore shirkaduhu ummadda wax uga iibin jireen in lagu iibiyo laguna sii bixiyo ilaa go'aan dambe oo dawladda ay soo gaarayso taasaan dadweynaha la socodsiinaya xaaladana la dejiyo dadweynaha sharafta leh waxaan sheegaynaa ma mooganin iyagaanu maqanahay iyagaanu mashquulsanahay iyagaanu adeegaynaa wax kasto dhibaato ku aana waa ka hortageynaa wax kasto dheeftoodana waa ka shaqeynaynaa markaas si guud shirkadaha oo muwaadiniintii Somaliland maalgashadayaasha iyo dadweynaha oo kuwii customerkii shirkaduhu ay u shaqeynayeen waxaan runtii leenahay sharciga cid walba ka weyn guud ahaan dalka sharciga ka jira dawlad baa ka jirta dawladdu waxa ay ogoshahay hadiya gooraale ee ganacsatadana doona shacabkana doona ayaa lagu shaqeynayaa cidina waxay jeebkayga kala soo toosto oo subax walba wixii la doono la dalacan karaa ma jirtaan baaqaasaan doonayay inaan maanta bulshada la wadaago in badan bay is weydiinayeen oo ilaahayeen waxa dhacay ee Somaliland oo dhan laga hadlay xagee ku maqan yihiin kuwii aan dooranay waa idin maqnayn sharaa'igana waa wada hadalay insha Allah taala waxaan ilaahay ka rajaynayaa isafgarad wanaagsan oo guul oo aan dadkana dib ku hayn shirkadaha dana inaan ka soo saarno inta wixii ka horeeyana wixii aad hore u bixin jirteen baad bixinaysaan waxa la dalacayna lama ogolo shirkad kasto idin la timaadana dadweynaha sharafta leh waxaan leeyahay soo dacwooda xafiisyada dawladda hoose keena xafiiska arrimaha bulshada madaxda keena talaabo sharci waafaqsan ma ka qaadayna